إني تذكرت والذكر مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا كتاب كان الضبط بالتقعيد المتشابه اللفظي في القرآن المجيد. waxaan ku soo guda jirnay qaacidada lixaad taas magaceedu ahaa alcinaaya bima tamtaaz bihi suura. qaybteedii labaad ayaan insha Allah guda galaynaa. intaynan qaybta guda galin wax yar oo tasxiixa ama sixid ah markaan ka hadlayay suuratu A'raaf. Allah subhanahu wa ta'ala markuu uu leeyahay aayadda laqad arsalna nuuhan ilaa qawmi. aayadda kaliya aan waaw lahayn aayadaha shabaha dhamaan walaqad arsalna nuuhan ilaa qawmi. marka suuradaha markaan tirinayay waxaan ku daray in arsalna nuuh kuma jirto suuratu nuuh laakiin waa suurado kale oo ay ka mid tahay mu'minuun yahuud xadiid yankabut kale kuwaas hadda ka xasuustaa. almuhim laqad arsalna wa A'raaf wa laqad arsalna wa inta soo hadhay in arsalna nuuh kuma jirto marka oo in arsalna nuuh laqad arsalna iyo walaqad arsalna midna kuma jirto. المهم marka qaybta labada aan guda galno intaas waa tasxiix. waxaan soo gaadhnay aan qaadan halkan ka bilaamaya kathratu ad-dawlan li kalimati al-amal. kalimada amal iyo mashtaqa minhu iyo wixii ka dhanbalma kalimadaas oo ku badan suuratu jaathiya. suuratu jaathiya ay ku badan tahay. sidoo kale al-kasb waxay ku badan tahay suuratu az-zumar. hadaba labada aayad isu eg aynu u guda galaynaa. wabada lahum sayyi'atu ma amilu وجاثية ما دام عملك وكبدن يهي يوحي كلمة عمل يوحي لها المعنى سيدا وعملوا العمل يكبدن تهي سورة جاثية. هل كالزمر كتها وبدأ لهم سيئات ما كسبوا مركا لوضع سعيد بسوء وبدأ لهم سيئات ما عملوا وجاثية وبدأ لهم سيئات ما كسبون والزمر. الشيخ حولي سياد درتيد أسكو خالدين عملوا يكسبوا. مركان جوجنا الزمر حول شيخ وبدأ لهم سيئات ما كسبوا. الزمر وقع بينه وحيود حيساء ذوقوا ما كنتم تكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وكسبي بيود حيساء سادرتد وبدأ لهم سيئات ما كسبوا. هلك جاثينا يكتهي ما كنتم تعملون إذا سوك وقع بينه وعملوا الصالحات سيئات ما عملوا بيود حيساء تاسنا وبدأ لهم سيئات ما عملوا أيضا لبدأ بيود حيساء وعملوا الصالحات سيئات ما عملوا. مركز سورة كسته ساس كحسوسنا العمل وسورة الجاثية الكسبنا وسورة الزمر. سورة كلا الزمر مجد حرف الزاي بكتير كسبون السين حروف الصفير حروف تفوليد سمينا أما عد كفوليد وكلا الزائد iyo siinka iyo saadka. okay waxaan u gudbaynaa suurta qasas waxa ku badan sheekhu leeyahay az-zina. kelmadda az-zina ayaa ku soo noqnoqotay sida fa kharaja ala qawmihi fi zinatihi wama utiitum min shay'in famata'u al-hayati ad-dunya wa zinatuha. waxayna idin sheekhu markuu wuxuu leeyahay waxaan ogaanaynaa كلمة الزينة إنه كتير سورة القصص أو أيسن كتير المركز شورى على آخرنا آيات دو إيجوه فما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا زينتها ما وضعته. ما دام قصص أيكون بدنتهاي الزينة سده فخرج على قومه في زينته وما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. مركز لكن تشورى آيات دو إيج فما أوتيتم وزينتها ما وضعته. الواو قبل الفاء وكسر مرنا قيبته هراء واو هراء فاذا ويدم بيسا. سيدو كلمة القسط وحيكون بدن تهي ولي شيخو ميل بدن كغسو عرفتي سورة يونس سيدا آيات أفراد آيات أفرتن إزديادات آيات كنتني أفراد ساد درتيد حولي شيخ هاسكو خالدين أخي الكريم هاسكو خالدين بكلية هاي قضي بينهم بالقسط مع قضي بينهم بالحق. فالأولى في سورة يونس مركل الشوغة قضي بينهم بالقسط وي انت كسو هارينا سورة كلنا وحاوي قضي بينهم بالحق. ما دام كلمة القسط يكون بدنتها سورة يونس وآياتها المرهد عن شيخي شيخ حسي وشيخي سادرتي قضي بينهم بالقسط ويونس قسط
xarfu qisda siin baa ku jira yuunusna ismu suurana siin baa ku jira ku xusan kartaa iyo inay ku badan tahayba okay waxaa ku xiga kelmadda lan waxay ku badan tahay suuratu albaqara sida waqaaluu lan tamassana annaaru ilaa ayaama macduuda waqaaluu lan yadkhula aljannata ila man kana huudan aw nasaara walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum saa darteed maadaama suuratu albaqara kelmadda lan ay ku badan tahay shiikhu wuxuu leeyahay ha isku khaldin laba aayadoo isu eeg midna ay ku jirto suuratu aljumca ay ku jirto midna albaqara walan yatamanawhu abadan bima qadamat aydiihim iyo walaa yatamanawnahu abada iyo walan yatamanawhu sababtoo ah kelmadda lan baa ku badan baqara saa darteed labada aayad isu eeg tan baqara walan yatamanawhu halka ay ka tahay suuratu aljumc walaa yatamanawnahu okay haddana waxaan u gudbaynaa kelimadda jacala oo ku badan suuratu zukhruf jacala ayaa zukhruf ku badan sida aayadda 10aad aayadda 12aad aayadda 15aad aayadda 19aad aayadda 28aad kelimadda jacala iyo baa ku badan buu sheekhu leeyahay saa darteed labada aayad isu eeg midna ay tahay daaha midna ay zukhruf tahay تزغرف جعل نقنسا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا ضاها بصهرس عفوا الشيخ صدوقري الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا يا قرآن كما سيدا قرآن طبعا ضاها بهرسة تن كلنا الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا سورة الزخرف بعد دنبيسا مركب ما دام كلمة جعل يكون بدن تحي suuratu azukhruf saa darteed labada aayad isu eeg ee midna ay tahay daaha midna ay tahay zukhruf midda zukhruf baa jacala noqonaysa oo ah alladii jacala lakum alarda mahdan wajacala lakum fiiha subula halka daaha ay ka tahay alladii jacala lakum alarda mahdan wasalaka marka wajacala iyo wasalaka isu eeg laakiin waxaad ku xasuusan kartaa in xarafka jacala uu ku badan yahay suuratu zukhruf اوكي هلك ان فهم في جعل والزخرف سلكنا وضاها سورة أنبياء الله سبحانه وتعالى وحوليه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون هلك الشعراء كتهي وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين مركب حاسوئك من ربهم يمن الرحمن نسيو ku ogaanaynaa sheekhu wuxuu leeyahay suuratu anbiya markaan joogno waxaa imaanaya qaala rabbii yaclamu alqawla fi الsamaa'i waalardi wahuwa الsamiicu alcaliim aayaddaas waxaa kasii dambeyn doonta aayadda ah qaala rabbii yaclamu alqawla fi الsamaa'i waalardi wahuwa الsamiicu alcaliim halka suuratu ashucaraa weeye kelmadda alraxma iyo wixii naxariista ka dhambalmaba ay ku badan yihiin suuratu ashucaraa sida waina rabbaka lahuwa alcasiizu araxiim aaya soo noqnoqonaysa alcasiizu araxiim sidaa darteed alraxiim iyo alraxmaan waa laba ka mida magacyada ilaahay inta badanna aanan laisku soo xasuusanayo bisinkana dee saraaca bayn wada ognahay alraxmaan alraxiim ilaah naxariista guud iyo midda gaarkaaba naxariista sidaa darteed maadaama alraxma iyo wixii la xidhiidha ama alraxmaan ama alraxiim ama alraxma kaarta dheh ay ku badantahay suuratu ashucaraa sida aayadda waina rabbaka lahuwa alcasiizu araxiim soo noqnoqota saa darteed wamaa yaatiihim min dikri min alraxmaan washucaraa wamaa yaatiihim min dikri min alraxmaan washucaraa halka ay ka tahay suuratu alambiyaa maa yaatiihim min dikrin min rabbihim iyo qaala rabbii waa isku xasuusanaysaa maadaama min rabbihim qaala rabbii baa kasii dambaysa marka saasay kale yihiin alraxmaan waa suuratu ashucaraa min rabbihimna waa suuratu alambiyaa waxaan u gudbaynaa ahlulkitaab oo ku badan suuratu maa'ida kasru dowlaan ahlulkitaab fii maa'ida halka ahlulqur'aan ah suuratu caraaf ay tahay saa darteed laba aayado isu eeg sheekhu wuxuu leeyahay isku khaldin walow ana ahla alkitaabi aamanuu wattaqow iyo walow ana ahla alquraa aamanuu wattaqow marka ahlulkitaab waxay ku badan tahay maa'ida halka alqur'aana ay tahay suuratu alacraaf walow ana ahla alkitaabi aamanuu wattaqow walow ana ahla alquraa
marka alqura qaafa ku jira acraafna fa ba ku jirta fa iyo qaafna waa laba xaraf oo isku xiga fa qaaf fa iyo qaaf okay qasas waanu imaanayna markale faradadnaahu ila ummihi kay taqarra aynaha wala tahzan halka ay ka tahay daaha farajacnaaka ila ummika kay taqarra aynaha wala tahzan marka waxa soo markeeba faradadnaahu ah iyo markeeba farajacnaaka ah saadarta sheekhu wuxuu leeyahay qasas waxaa ku soo noqnoqday lafdiga arrad iyo wixii la xidhiidha sida inna radduhu ilayki wajaaciluuhu min almursaliin marka saadarteed maadaama kelimada arrad ku baday ku soo noqnoqdo suuratu qasas faradadnaahu ilaa ummihi kay taqarra aynuha walaa taxzan ila aayadda hore waxay ahayd inna radduhu ilayk waan kuu soo celinayna waatii la yidhi nabilahi muusa baa laga hadlayay hooyisati allah kuu soo celinaya wiilkaaga camal marka waana aayadda 7aad dhowr aayad kadib aayadda 13aad faradadnaahu ilaa ummihi markaad soo akhriysay inna radduhu faradadnaahu sidoo kale inay soo socoto ogow halka waxaa ku cadaanaysa inay daaha noqonayso farajacnaaka mar haddaad laba ay soo mid kamid aad meel saarto tii kale way fududaanaysaa suuratu almujaadila ama qad samica nimaadna waxaan ognahay suuratu mujaadila inay aayad kasta oo kamid ah waxaa ku jira lafdul jalaala allah baa ku jira sidaa darteed ittakhaduu aymaanahum junnatan fasaduu can sabiili illaah falahum cadaabun muhiin yaan lagu khaldin buu leeyahy shiikhu ittakhaduu aymaanahum junnatan fasaduu can sabiilihi sababto haddaan dhahan ittakhaduu aymaanahum junnatan fasaduu can sabiilih falahum cadaabun muhiin aayaddii way dhammaatay sidaa darteed waxay ka dhigan tahay in aayaddii inay dhammaatay lafduljalaalihi allahna aynan akhrin maadaama aynu ognahay suuratu mujaadila 22 aayadood weeye dhammaan aayad kastana waxaa ku jira lafduljalaala allah marka sidaa darteed ittakhaduu aymaanahum junnatan fasaduu can sabiili illaah falahum cadaabun muhiin in la fahmo ayaa filayaa fasaduu can sabiilihi iyo fasaduu can sabiili illah way kala yihiin waxaadna ku xasuusan kartaa in suuratu mujaadala kelimadda allah aayad kasta ay ku jirta kusoo noqnoqonayso marka sidaa darteed fasaduu can sabiili illaah ayaa halkaa loo akhrinayaa oo ay tahayba kathratu wardi alcilm kelmadda alcilmi iyo mashtaqa minhu fi suurati yuusuf cilmiga iyo wixii cilmi ka dhambalma ayaa suuratu yuusuf ku badan sida aclam caliim yacmaluun callamtanii sidaa darteed caliim ayaa ka horaysa alxakiim marka yuusuf la joogo alcaliim ama caliim baa ka horaysa xakiim okay sida aayadaha ah wakadalika yajtabiika rabuka wayucallimuka min taawiili اlaxaadiiث wayutimu nicmatahu calayka wcalى ali yacquub kama tamaha calى abaweyka min qabli ibraahiima waisxaaqa ina rabaka caliimun xakiim iyo sidoo kale inahu huwa alcaliimu اlxakiim marka alcilm ku badan suuratu yuusuf sidaa darteed cilmigaa soo horeeya caliimun xakiim iyo inahu huwa alcaliimu alxakiim ina rabbaka xakiimun caliim suuratu alancaam weeye marka xakiimka horeeyo waxaadna ku xasuusan kartaa in tartiib alxuruuf alhijaa'iga xa'da iyo caynka xa'daa horeysa sidaa darteed xa'du way ka horeysaa suuratu ancaamna way ka horeysaa yuusuf sidaa darteed ina rabbaka xakiimun caliim marka la dhaho waa suuratu ancaam maadaama xa'du ay ka horeyso caynka ancaamna ay ka horeyso yuunus okay intaas yuusuf aan weli ku guda jirnaa sidoo kale yuusuf fii suurati yuusuf sheikhu wuxuu leey lam ya'ti fiiha abadan yafcaluun gebi ahaanba suuratu yuusuf kuma jirtaba lagama helo laakiin meelahaas yafcaluun aad u malayn karto waa yacmaluun wallaahu caliimun bima yacmaluun falaa tabta'is bima kaanuu yacmaluun falaa tabta'is bima kaanuu yacmaluun waxaa jirta aayad u eego ah suuratu huud ku jirta wawuxiya ilaa nuuxin anahu lan yu'mina min qowmik ila man qad aaman falaa tabta'is bima kaanuu yafcaluun marka yafcaluun waa huud maadaama suuratu yuusuf aan lagaba helin yafcaluun sidoo kalena ay alcilmu uu ku badan yahay iyo wixii la halmaala sidaan ku soo aragnay aayadaha horeba sheikh wuxuu leeyay tanbiih muhim yanbaqii ata'amul jayidan waxaa muhima buu leeyay shiikhu in si qoto dheer loogu ta'amulo oo si fiican loo fiiriyo suuradahan soo socda yani tusaalayaashan soo socda
in si fiican loo eego jumladaha ku soo noqnoqda fi suura waaxida hal suurad keliya suuratu qasas marka la ku noqono suuratu qasas waxaa ku jira faqad jaa fiiha lacallahum yatadakkaruun fi ثلاثة مواضع صدح ميل أي حكاية يمد كجرة سورة قصص مثل تشوجه لعلهم يتذكرون فمرجع حولي شيخ اسكو خالدين أو تشكيل كاجلين شكل كاجلين أو ما ركتينا اسكو خالده لعلهم يتقون ما دام لعلهم يتذكرون صدح مركز على نقطة قصص سادرتد لعلهم يتقون هم ملانين سورة النور السماوات والأرض وأفر مركوشرته سيد الله نور السماوات والأرض ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض ألا إن لله ما في السماوات والأرض سادرت الحلي الشيخ فلا تدخل على الأرض حرف الجر فيها كدر بوليه وفي الأرض وكالهديه أما في السماوات والأرض فيكم يجرت أفر مرء سورة النور أحزاب سورة أحزاب لما مرحا كتر سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله في الذين خلوا من قبل مركا حسكو خلدن بوليه هي سنة الله التي قد خلت سنة الله التي قد خلت ما دام لما مرحا كتر سورة أحزاب سنة الله في الذين خلوا مركا أحزاب لما مربا وسنة الله في الذين خلوا معها سنة الله التي قد خلت الأنعام والنمل ويونس في جميعها لم يأتي في ختام الآيات المتشابهة مع غيرها إلا ولكن أكثرهم لما تصدح سورة دوت عن كوضع أنعام النمل يونس آياتها متشابهة كتير لما تكودوا ولكن أكثرهم وي ولم يأتي أبدا ولكن أكثر الناس لقمه ليو لشيخ ولكن أكثر الناس صدح لقمه ليو لكن حق بالعكس بخلاف سورة أنت كجسه هرشيدة كوكل الدوينهين وسيدا يوسف يغافر وكله ولكن أكثر الناس لقيه لي أقول لي شيخه لكن الأنعام والنمل ويونس مركل تشوجه أيضا متشابهة يشبه كلا أيضا كله ولكن أكثرهم هل كوا شبهها يعني ولكن أكثر الناس أيهين سيدا يوسف يغافر الشيخ حولي هاي سورة يوسف يغافر وكله أيجنا وحوي ولكن أكثر الناس كما شرت ولكن أكثرهم أيقنا معها وحكي دوينهن الأنعام النمل يونس أي بالعكس اسكويهن عذاب يوم عظيم في الشعراء حيث وردت في 3 مواضع صدح مر عذاب يوم عظيم حركة سيرتها وكل الدوانات لكن هذا من حنو آخرين عذاب يوم عظيم عن قادة النبا إني كتشرت صدح مر سيدا إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أما عذاب يوم عظيم عذاب حركة هكذا الدوانات هذا لأن عذاب إذا بعض كردقان عذاب بعض يوم مركز الجدن عذاب بعض يهدنا كردقان مركز المهم عذاب يوم عظيم أما عذاب يوم عظيم صدح مرأي كتشرت سورة الشعراء الله سبحانه وتعالى يقول إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم وبالتالي سادرت الحلي هي شيخ فلا يشكل عليك عذاب يوم أليم أما مهين هاوم لين المركة عذاب يوم أليم عذاب يوم مهين هاوم لين سببت أو حلي هي سورة شعراء مركة اللي تشوقه لقمه ليبود هي كلمة دهن لم يرد في السورة أبدا إلا عذاب يوم عظيم عذاب يوم عظيم بعد ما قصة عروري سورة الشعراء لقمه ليولا شيخ عذاب يوم أليم يمهين تانا قيبت عن قد قلنا شيخ حولي القاعدة خاصة بالسورة قاعدة خاصة نقولنس السورة وهذه من الضوابط النافعة حيث يكون للسورة الواحدة قاعدة خاصة ينتفع بها من عرفها وقاعدة قوني نقولنس السورة وقفكي برتا قرتنا ينفع إن شاء الله في سورة النحل وحاكب بضن وكتشلا آية يلا مرة آيات شيخ مركو حوليه اسكدر أما آية هنقطة أما آيات هنقطة تضمن مر بكتشة في سورة النحل سيدا إن في ذلك الآية أم إن في ذلك الآيات كي هاتبا مركا لبدا مر آيات نقونا يان لبدا مر به آيات دحلي وحلقيه ليا مسخرات بهريسة كدبنا جاءت معها آيات بإيمانية مسخرات بهريسة مركا المسخرات أركته إن في ذلك أنا الآيات آخر مركا سؤال يا شو كنا وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر
والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات ما دام مسخرات أن سو آخرني وطاء مفتوحة مسخرات تعدير إن في ذلك لآيات وتعدير الآية من نقول سو تعقابه سيدو كله ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات سيدو كله وإن في ذلك لآيات ما دام مسخرات أي كهرسو labadaas mar ee musakharaat aayadaha ku jiraan labadooduna waa inna fi dalika laayaat inta ka soo hadhayna oo shanta soo hadhayna inna fi dalika laaya markay fududahay todoba mar way total inna fi dalika dhamaan ku jirta suurta nahl shan kamida inna fi dalika laaya shantaas musakharaat malaha labada musakharaat leh oo taadheer ah labaduba inna fi dalika laayaat weey marka todoba shan kamida inna fi dalika laaya laba kamidana inna fi dalika laayaat maadaama musakharaat ay ka horeysa ku xasan karto waxaan ku guda jirnaa qaacidada khaaska u ah suuradaha waxaan imaanaynaa suuratu huud walamaa jaa amruna iyo falamaa jaa amruna waa ku badan suuratu huud sheekhu wuxuu leeyahay marka faqad jaa'at fi 4 mawaadic afar meel baa waxaa ku jirta walamaa jaa ama falamaa jaa isku dar marka markeeba falamaa ah markeebaase walamaa ah الله سبحانه وتعالى وحوليه وإنت نقول هذا إن نخرج شيء وحوليه هدي أنه إذا جاء العذاب بعد التوقيت الزمني فيأتينا فلما هدي عذابك الله يبغى هيقام ومركه هود شغنا ويه وقت معين الله قبته وقت الحديدي مركه كدي فلما بكدم بينس هدي أنا وقت الله قبلنا فلما معه أوكي إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب بل نكود صبح ميسنا مدو فلما جاء مركع إيمانس إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أدام الصبح لا قبتي سيدو كره فعقروها مكي هشي بغنقوين فقال تمتعوا في داركم 3 أيام صدح معلم بالله قبتي ذلك وعد غير مكذوب فلما ما دام صدح معلم الله قبتي فلما جاء أمرنا مركع المهم هدي وقتي لحديدي وفلما هدي أنا وقتي لحديدنا فلما ما نقنيسو ولما sidoo kale qaacida kale oo inta dheer ku xasuusan karto ay taayadana waxaan ognahay kitaabka quraanka marka aynu musxafka aynu akhrinayno oo kitaabka loo kala furo inuu yahay baal midig iyo baal bidix ah ama page midig ah ama page bidix ah hadii page-ku midig aan ku hormarno midig hadii aad akhrinayso oo page midig ay aayadu ku jirto marka huud joogna way maaha quraanka oo dhan waa falamma midigtu waa falamma halka beejki bidixdana uu noqonayo walama marka iyo qaacida sheekhu qoray tawqiit hadii lagu sameeyo cadaabka qoomkaas waa falama hadana lagu sameeyna waa walama ama mid hadan kuugu daray beej midig iyo beej bidix midigtuna waa falama bidixduna waa walama وهجاج ده وحنا كسر عف ميرينا قاعدة قيبت اللباد أهنا 10 قيبت وجود دم بيسا إن شاء الله نحن كسر جود الجرني قاعدة خاص كوه الصورة ده الله حولي هي ولم يكن من المشركين ولا تك في ضيق مما يمكرون لو أيضا متشابه هذا شبهها سورة النحل وحيلا دارت لشيخه وخصت هذه السورة النحل لقاها الله بالحذف دون النمل موافقة لما قبل سورة النحل ما كانت حذف أما قوين بلا دارتها سورة النمل 6 صالحان ولم يكن من المشركين ولا تك في ضيق مما يمكرون ولم يكن معها نون موضته ولا تكن معها نون موضته كتاب كان الله صبحنا سورة النحل وتنا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وآية بقول يلا باتناد وأنا آية ظهر ما دام ولم يكن آية الدنبنة سيدك الوسي وفقضي واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو ولم يكن بهريسة ولا تكو آية بقول يلا باتناد آية قدام آية كهريسة آية بقول يلا تاني تدو سيدرتين آية ظهر ولم يكن بدون النون كما ملها آية الدنبانة سيدو كله ولا تكو النون على الهين مركب حاجة آية الدنبة قارهان ولا تكو وكتشت سورة النمل ولا تكن في ضيق ولا تكن نون بلا تاع النمل ولا تكن في ضيق مما يمكرون هل كتن ولا تكو أي كتاي بدون النون انت ينكس أفميري 10 كيني قاعدة دي اللي هذا كتابك بعدها سوى الله وقعي وضحيت قارهان قيبتي دلبات بنتك وصاف ميرينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.